nidaamkan oo dhulbeereed si casri ah loo farsameeyay ayaa laga hirgeliyay deegaanka galbeed ee magaalada Hargeysa. Cali Jaamac Aadan iyo Awal Mawlid Cumar ayaa ka waramay muddada ay ku qaadatay hawshan iyo dhulbeereedkan casriga oo adduunyada laga isticmaalo loo yaqaano greenhouse. Cali Jaamac Aadan ayaa faahfaahin ka bixiyay muddada hawshan ay ku qaadatay waxaana uu sheegay in nidaamkan uu yahay nidaam casri ah oo looga faa'iideysanayo dhulka qalalan isla markaana laga soo saaray qudaarta noocyadeeda kala duwan. isagoo bulshada u baaqaya waxa uu yiri walbaynu arkayaan doonayayo tusaale la siiyo ummadda si ay halka nin walba wax uga eebto oo wax ka arko dadkeenu imaka waxa ay wax ku qaataan waa taabasho haba qalin laguma tilmaami karo laakiin qofku markuu arko ay wax qabsan karaya inta aan waxba arag waxba looma tilmaamo waxba kuma qabsan karayo marka Soomaalidu waxay tiraahdaa oo mana waxba ma qabto meesha hadaan biyo lahayn waan arki doontaa waxaan tusi doonaa taangiga halka ku yaala ee 20ka foosta 13 cisho ilaa 15 cisho ayuu ku socdaa beertuna waxay ku baxaysaa 3 bilood wax ka yar dhulka banaana dhirtu kuma baxdo waad arkaysaa kulaylka ayay iyo uumiga ayay ku baxdaa caalamka greenhouse-ka meel aan ahayn waxba kuma beerto. Awal Mawlid Cumar oo kamid ah mulkiilayaasha iyo maalgeliyayaasha beertan casriga ah ayaa sheegay in adduunyadu ay guurtay oo horumar la sameeyay maadaama dhulka Soomaaliland uu qallayl u badan yahayna buu yiri laga faa'iideysan karo laga soo saarayo qudaar badan iyadoo aan biyo badan loo baahnayn. Awal oo ummadda u soo bandhigay sida ay uga faa'iideysanayaan iyo adeegga ay bulshada siinayaan si hagar la'aan waxa uu yiri ilaahay baa horta maxad iska leh alaabtan in fara badan baan ku soo tabcaynay waqti badan baan naga baxay dadkeenuna way iska dhibaataysayna baahi baa haysa dadku waxaanu sameeynaa si ay uga bixi karaan baahida oo ay dhulkooda uga soo bixi karaan waxa weeyaan alaabtan arkaysan bacahan iyo birahan iyo qalabkan tumbooyinkan iyo waxan waqti ilaa sanad meelahaas ay nagu qaadatay in aanu ka shaqeyn karno wadanka aanu geeni karno alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa noo fududeeyay waanu keenay oo idinka arkaya maanta inay wax soo saar durba ay leedahay siirkan wuxuu ku yaalay meesha waxa weeyaan waqti ilaa 20 cisho waxaan gaadhaynin maantana waa arkaysaan halka uu marayo heerka uu taagan yahay tamaandhada inay dhashay yar u jirta marka dadkeenan iska kadeedina abaaruhu ay ku dhaceen ee dhulka aan wax kala soo bixi kareynin waxaan tusaynaa in dhulkooda wax laga soo bixi karayo beerta dhan maalintii waxa ku baxa biyo dhan 2 foosto ama wax ka yarba cabirkeedu waxa weeyaan 8 guri 7 guri meelahaas ka kooban tahay intii kalena waan wadnaa waxaanu sameeynay oo kale qarbadan u keenay biyaha ay ku shumaan oo laga waraabin kara beerta taagada looga dalacay marka waxa laga maarmi karaa sida biyo la'aanta oo kale marka qofkii 2 qarbad 5 qarbad markuu sameeysto biyihii ilaahay siiyay raxmaadkii waa ugu shumaya marka sanadka oo dhow wuxuu ku cabi karaa kaga dhirgayaa dhulkiisii waxa weeyaan 2 qarbad ama ceel hadduu sameeysto oo kale wax biyaha u haynaya dadweynaha waxa ku baraarujinaynaa in ay noo yimaadaan oo fikir bilaa lacag aanu siinaa anaga lacag baan naga baxday taa fikirkan inaanu ka shaqeyno oo aanu keeno laakiin isagoo bilaashan oo haynaa dadkii in aanu dadkii wax tusno oo ay wax la soo baxaan oo ay manaafacaad dhulkoodii ka heli karaan iyo ciidooda oo manaha ay mataqaanaa aanay u baahan karin in ay meel kale wax uga iman karaan waxaanu ku wargelinaa inay noo yimaadaan inay la soo xiriiri karaan oo si gaaban maxay ahayd iyadoo waqti kaga lumin ay u heli karaan chance ka anagu aanu lacagta faraha badan naga baxday waqtiga badan alaabta dhammaystiran baan u haynaa cidii u baahan inaanu caawinaan garab qabanana cidii mataqaanaa farsamadeeda ku filanna waxaan leenahay ciidiina wax ka qabsada waa markii ugu horeysay ee shacabka reer Soomaaliland iyo muwaadiniintu ay soo bandhigaan nidaam casri ah oo looga faa'iideysanayo qudaarta iyadoo aan biyo badan la isticmaaleyn waa Cabdi Almis iyo Cabdi Casiis Al Nuur telefishin qaranka Soomaaliland Hargeysa.